maxamuud warsame geylac oo 93 sano jir ayaa la aqalgalay gacalisadiisa Sacdiye Ciise Aadan oo dhac maray jacayl nafqaybsi leh waxaana arooskan uu ka dhacay xaafadda Ciise Cabdi degmada Dayniile lamaanahan dunida iska doortay ayaa waxaa ka hor aqalgalkooda dhex maray jacayl dhuuxa iyo lafaha galay ka oo keenay in ugu dambeyn ku heshiiyaan in oo nolosha ku midoobaan ayna noqdaan lamaano isweeshada oo farxad badan wada qaata maxamuud warsame geylac iyo gacalisidiisa Sacdiye ayaa meherkoodu 6 bishan ka dhacay hotel ku yaal xaafadda Ciise Cabdi ee degmada Dayniile waxaana lamaanahan meherkoodu ka dhigteen lacag gaaraysa $200 arooska lamaanaha qarniga ayaa ahaa mid ka tilmaamnaa xaafadda Ciise Cabdi waxaana habeenkii aqalgalkooda lagu galbiyey gaadiid badan oo u badnaa kuwa aad u qurux badan si weyna loo soo nashqadeeyey waxaana arooskaasi goobjoog ka ahaa ehelada lamaanahan isdoortay kuwa oo bogaadinayay jacaylka guulaystay dadka taagnaa hareeraha waddooyinka gaadiidka arooska lagu galbinayey ayaa iyana sacabo badan tumayey waxayna lamaanaha u rajaynayeen nolol farxadeed iyagu ugu ducaynayey in ay kala helaan ubad baaryaala gaadiidka lagu galbinaya ee arooska lamaanahan ayaa sidoo kale waxaa ka shidhnaa heeso u badnaa kuwa aroosyada laga qaado waxayna heesahaas ahaayeen kuwa ka tarjumaya jacaylka guulaystay iyo farxadda lamaanahaasi dunida iska calmaday lamaanahan isxushay ayaa ah kuwa isku faraxsan oo maalmaha noloshooda ugu macaan hadda wada qaadanaya waxayna tusaale u yihiin in jacaylku uusan lahayn da' balse uu yahay mid ku beerma qof kastoo jacayl qalbigiisu galo jacaylka noocan ee guulaysta ayaa inta badan waxa dhaliila amba wax ka sheega wiilal iyo gabdho iskaabulnimada ku raagay kuwa oo nolol mooda mugdiga iyo kala jiifadka ay ku jiraan waxaan leeyahay hala soo dhoweeyo lamaanaha qarniga hana la bogaadiyo jacaylka guulaystay anna waxaan leeyahay noqda kuwa isku waara isku raaga kala hela ubad khayr qaba wada jiray nabadgala allahayow idinka yar